Sadio Mane ayaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartanka qaramada qaaradda Afrika kaasoo xalay lagu soo gabagabeeyay dalka Morocco. Kartidiisa iyo kaalintii uu ka qaatay dejinta ciyaaryahanada xulka qaranka Senegal kuwa oo caro uga baxay garoonka maadaama ay cadaalad darro ka tirsanayeen garsoorka ayaa waxa uu ku muteystay ammaan aad u ballaaran. Horey majalada France Football ayaa u siisay abaalmarinta Socrates Award oo ah abaalmarin la siiyo dadka ka shaqeeya nabadda. Sadio Mane waa haliyey ay tabi doonto qaaradda Afrika, sidoo kale waxa uu baal dahab ka galay taariikhda kubadda cagta qaaradda Afrika. 2 mar ayuu ku guuleystay koobka qaramada qaaradda Afrika waana 2021 iyo 2026. 2 mar ayuu noqday ciyaaryahanka sanadka qaaradda Afrika waana 2019 iyo 2022. ciyaaryahanka taariikhda ugu goolasha badan iyo kan ugu caawinta badan labadaba waa Sadio Mane marka laga hadlayo xulka qaranka Senegal. Gool caawiyaha ugu sarreeya marka laga hadlayo taariikhda kubadda cagta qaaradda Afrika oo dhan waa Sadio Mane. Sidoo kale waa ciyaaryahanka shanaad ee taariikhda ugu goolasha badan koobka qaramada qaaradda Afrika. Sadio Mane ma ahan haliyey dalka Senegal oo kaliya ee waa haliyey ka dhaxeeya qaaradda Afrika isla markaana baal dahab ka galay taariikhda kubadda cagta qaaradda Afrika.